إله سبحانه وتعالى كجعليه نبي وحده وفي كل خير لكن هذا ما دام إيمان كان قاليه كفت قلف إيمان قلبي سكجره خير بكجره مثل بخير بكجره النبي صلى الله عليه وسلم مركب وحده احرص على ما ينفعك واحد كد ذا شاوحك وأنفعك كد ذا احرص على ما ينفعك واستعن بالله وحيك أنفعك وحكو ترى كد ذا إلهنا كالمس الضوال ما قضب مهم وقادر والله هو مهم هذا لبدا قضب حسوسناته ood ku shaqeysan labada qodob waad soconaysaa adeer adduunkana meel sanad gaaraysaa aakhirana meel fiican baad tagaysaa ihris ala ma yanfa maskaxda waxaad ku haysaa wixii ku anfacaya inaad ka shaqeysato cibaadada ilaahay caabudo way ku anfacaysaa adoo si wanaagsan wax u bartaa way ku anfacaysaa soo garan maysid waqtigaaga ood ka faa'iideysataa ood wax fiican qabsataa way ku anfacaysaa aday ku dhisaysaa سمعت maxaad meesha ka fahmaysaa waxaan ku anfacayn ka fogow nimanka dhalinyaradeena maxaa ku badan waxaan in anfacayn badan wallahi wax dhalinyaradeena wax badan waqtiga badan waxaan ku luminaa waxaan in anfacayn مثلا imika waqtiyada imika jooga waxa kamid ah mobilada Soomaaliya arag mobiladu cid bin aadam kasta wax soo galiya qaar khayr wada iyo qaar shar wada aba way soo galiyaan mobilada waxa ku jiraan cid walba wax bay soo galisaa haddii marka adigu cid sharka aad doonato oo ku waxyaalo dambiga ee ku jira mobilada aad hada jeer doonato aad ka dhigato waxa weeye uu ku xumeynaya aqalgana uu ka xumeynaya maskaxdu way ka xumaanaysaa iimaankaaguna uu ka xumaanaya dhaqankuna uu ka xumaanaya meel ina waa shaydaane hada shayaad mobilada waxa soo galiya shaydaanna waxa soo galiya qof fiicanna waxa soo galiya شيطان مركز شيطان ما ترى على الدين شيطان حقوقه كحين إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير نار تحدثه كحينية شيطان كهمود بس كلية كائنا أركهين بن آدم الشيطان مو باجرة شيطان نقضي باجرة سو مجران هو جيران بن آدم قل أعوذ برب الناس ما هي كجرة الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس كهذا كوشة كينية وحن كوشة جنة ولي من الجنة جنة والناس ضد الله بدو وجران marka hadaa nimka mobilada dhalinyarada waxa ku badan baalanta galaan bay dhinac xun aad u galaan soo garan maysid dabeetana dhaqmo xun bay ku bartaan madaxu ka xumaada maskaxda way ka xumaada soo xun bay u fikirayaan wax xun bay ku fikirayaan dhaqmo xun buu baraya khatar weey marka waa inaad adeer iska ilaaliya baalka iska ilaaliya waxa la sameeyay sheegay waxaad samaynaysaa inta yara fiican waliba inta yara fiican imkaanu inta fiican ma ka galaa laakiin maca dalika hadana waxaan arkaa marar qaar isagoo sheekadu ila fogaato waxa laga yaabaa kutubba ka baadhayo hadda xalayn ila fogaado sababta baalkan waqti badan buu lumiyaa wada waqti badan buu lumiyaa marka waa adiga wala taxadiira wala silaaliya waqti badan inaanu ka lumin wala iska ilaaliya hatta ada wax fiican ka shaqeynaya waxa lagu dadaalo wax fiican aad ku dadaasho ayaa hadana la silaaliya waqti badan inaanu ka lumin mid kale waa sheegay oo fiican aad u muhiim qodobkaas waxa weeye bahalkaasi ilaahay baryo waxa tiraahdo waxa la yiraahdaa ilaahu mobilkaasi khayrkiisana si ilaahu sharkiisana iga fogay baa la yiraahdaa waa muhiim jiddan in saa u ducaysato waa muhiim waxa muhiim taan idin sheegaya nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu nabigu ina baray nabigu waxa la yiraahdaa hadii wax fiican ay soo galaan imka haduu maryo cusub soo galo ilaahay inta ugu xamdiyo بودن جري إله مرضى أسي خير كذا أسي شر كذا إنك نجي هذا ميل عسوب دقو مثلا سفر بوك جري ميل بودقي وحو ينبري إن ماشى شر كذا إله لقى ما كان قلبه ينبري سيدا درادين كان لفتي سوى مهم إن نراهنه إله موبيل كاسي خير كيسنا أسي شر كيسنا إله يجن بتقول إن نراهنه هو مهم والله هو مهم قفك أوجاد إله بريانا والصعدة إله كو كالمين دad إله dad qod caadadaadu ay noqoto inaad Ilaahay goor la barido Ilaahay ku kaalmeynaya ma aha kan kaliya waxa weeye noloshaada oo dhan imika hadaan doonayo buuga inaan akhriyo dhameeyo hadii markan bilaabay aan raahdo Ilaahay ay kaalme buuga inaan dhameeyo kaalme waxa arki doontaa adoo dhameeyadaas arki doontaa laakiin hadaan Ilaahay xusuusanba dad Ilaahay aanad xusuusanba wax waad qaban laakiin wax qabadkaagu daciif buu noqonaya abadan marka waxaad caado ka dhigataan daa'iman Ilaahay bariya حديث كان محينا ليه الحديث كان وحنا بريا بلاك النبي وحول احرص على ما ينفعك واستعن بالله وما حي إلهي كالمس ما حن دوني أنا كنت
baalkaa wax sida fiican uu isticmaalo oo wixii nafci loo ka qaato soo maaha waa ilaahay kaalmaysanaa ilaahay waxa lagu kaalmaysaa wixii fiican inaan ka qaato wixii wanaan wanaagsanin inaan ka fogaado ilaahay uu kaalmo inaan dhaada soo garan maysid marka waa muhiim jiddan aad iska ilaali adeer qodobka barta mar kasta barta waxa doonaysaa waa dhowahay kulligii waxaan jecel lahay inaan fiicnaano waan jecel lahay inaan si fiican wax barno waan jecel lahay inaan adduunkan intaan nool lahay meel fiican gaadhno waan jecel lahay aakhira haddaan tagno waxaan jecel lahay jannada inaan tagno waan jecel lahay kullu waan jecel lahay inaanu ilaahay si wanaagsan wada caabudno waan jecel lahay soo garan maysid laakiin waxa la doonayaa inaad isku darto camal iyo ducaa isku darto shaqo aduguna ilaahay bari hatta faatixada ku jirta soo maaha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin waa maxay iyyaka na'budu ilaahay adan ku caabudina soo maaha ilaahay adan ku caabudina wa iyyaka nasta'iin waa maxay ilaahay adan kaalmo ku weydiisanayna marka waa muhiim jiddan waa dhowahay kulligii waxaan jecel lahay inaanu fiicnaano inaanu soconno inaan wax baranno inaan wanaagsanaano wax wanaagsan marka ku sheegan wax leedahay waxaas wax wanaagsan baad kulligii leedihiin laakiin haddana maxay naga maqan waxaas arkaysaa hadhow haddana adoo dhaqamadii xumaa iyo wixii xumaa iskaga socdaad arkaysaa marka waxaad arkaysaa waxaad ogaataa aday wax ka yara khaldan yihiin dadaalkaaguna waxa laga yaabaa inuu liito ducadaaduna inay liidato marka labada isku dar marka nabigu wuxuu leeyahay wixii ku anfacaya ku dadaal imika waxa jira balwada far badan ba magaalada ka jira balwadahaasi dadka way baabi'iyaan finish ku baabi'inaya khalaas waa ku baabi'inaya imika qofka sigaarka waxa ugu yar baad wax ka soo qaatay sigaarka marka soo qaado sigaarku ma wax dadka anfacaba abadan waxa la wax ku anfacaya ma jiro waa qurmuunba qurmuun wallahi absa marka u fiirsan ninka sigaarka cabay nin baa muxuu ku falaya وده واحد وشيطان باقلي شيطان كاس أوه هذا ما هك أين أركين كلية مد سوى بالوذا كجرة باكو برا يا شيطانة وقرنا يعني بالحبة السجار كا يا نيبه هذا باش أنت شايف بيرجع هربوا حبر نوعية لكن مركو نروح لونش العربي قالوا برتا بيقولون جرين بالك عربي قالوا برتا مركو واحد من اللبح هنا تكون نقول سبالك مركو عرفت اللبح فما ركزي لكن هو شيطان وي waxaa loo xogtariya mid ku baabiinaya finish baabaaysa sababadaadu ma dhimanaya dadka sigaarka cabbi jiray in badan cabbi jiray oo fiirso waxaad arkaysaa qaar imaka muxuu ahaa hawada ku qaahama hawa asita oxygen afka laga siiyo sababta sababada baa dhintay sigaar cabbi waa laga fogaado waxa soo kale waa la iska ilaaliyaa maxaa kamid ah qaadka isku baranina qaadka adeer ugu baabiinaya khalaas ku dilay lacagtaadu baabiinaya naftaadu baabiinaya caafimaadkaagu baabiinaya waqtigaagu baabiinaya khalaas waxaad ogtiin in magaalada waxa ku soo batay xashiishada iyo waxba ku soo batay iska ilaali adeer waxyaalahaas abadan iska ilaali xashiishada iyo waxa isku baranay waa qof naftiisa baabiinaya adduunna baabiinaya aakhirana baabiinaya marka miyaad jeceshay naftaadu inay baabado adduunkana siricad ku noolaato aakhirana cadaab aad gashay miyaad jeceshahay naftaada u turdaadeer عذابك إلى مدح ملي كرتا أدونك إن تقف ساقط باباسن إن نقطة مية تعيشها هذا هو سكيل عليه وح سكيل عليه وعقل الله سكيل عليه ويانا خطرة صاحبك حنا سكيل عليه لأن يرى مشى كبنتان وحوي صاحبهم مكر رعان مركز بنتان خلاص صابت وقف إسقوا بقى نسيبونا نسينو سعنين أو إسقوا بقى نفتيس وحبا وترين ونفتيس بابية بالوذا كجرا سيجارك عباد ودون خمرك عباد ودون حشيشة عباد مساجك عن سوق قليل أنت كنا هذا راعوا أو صاحب نقطان أو سلق الصشان مركز ما حق الشيطان نمر كوك حين حمانتك ويل النواد برن بالوذا هي كجرا نبض أظن برن إنسان مركز كإل عليه أظن مركز ما حد سمين إنسان مركز أظن وحوي وأنا فعناتها كاحن أظن وأنا ضيع ما هذا كأن الوي ولا لو كحيسته وأنا عسنم هذا وأنا عسنم هدي عليه وأنا قطع قفل لك حيسته أو قف كحولك حيسته هذا أنا قطع أنا عسنم كقطع هذا عقل إلهي محينوسي عقل هو قال عقل قوي عقل جوه اللي نوسي إنه يحكم بيسانو هذا اليوم محا وحي فائدة إله محا فائدة إله حين إلى هذا كدمنا وحي فائدة لنا كشقيسته وحي أن فائدة إله هنا واحد فائدة من السكر عقل أساس إله يسي سكرين مزيد مركب وانا عقل استعماشا عقل وانا استعماشا أو السكيل على لسان صاحب بضح السكيل عليه هذا
idinku imika waxaad tihiin alxamdulillah khayr waxbaad barataan arday wanaagsan baad tihiin laakiin waxaa la doonayaa inaad adigu noqoto qof dadka anfacaya inaad noqoto maaha adiga in lagu jiita maaha adigu waa dadka soo jiidaa oo xagga wanaagga u soo jiidaa markaad soo jiidayso odhan maysid waan la saaxiibaya qofka xun waan soo jiidaya sababto waan soo jiidaya odhan sidaa sababto waxaa dhici karta inuu kaa xoog bato ku jiita adiga ha la saaxiibin ha la qosqoslin يعني waxaan u jeedaa de saaxiibo israaco oo wada shaaheeyo oo goor walba wada socdo ha noqonin sababtoo dad sidaas noqoto adaa khatar ku jira waa salaami kartaa salaamu calaykum warsaf ma fiicnid waa saaxiib waa khalaas waa sax laakiin saaxiib ha la noqonin waxaad ku dadaashaa adigu inaad soo jiido tiraahdo warniyo ballankan masaajidka soo gal dawa sidii kale salaada tukoota dheh waxa laga yaabaa intaas in Ilaahay uu ku anfaco oo qof fiican u noqdo ayaa laga yaabaa marka waxaad ogaataan adeer khayr Allah idin siiyo waxaad ogaataan eeg hadda wariya mas'uuliyadka ina saaran soo imka salaad laga doonayo qofka soom salaad baa laga doonaya soom baa laga doonaya waxyaalaha la inaga doonayo waxa kamid ah dadka inaga leexsanna inaan soo kaxayno wariya dadka inaga leexsan dhalinyarada istaqaanaan ee sida xun u socda ee balwada xun ku jira in masaajidada soo galin soo kaxeeya adeer waxa tiraa warina kan kale masaajidka soo galnay intaas in anfacda laga yaabo adaguna inaad khayr badan ka hesho nabigu wuxuu yiri man dalla ala khayrin falahu mithlu ajri fa'ilihi qofka dadka khayr u tilmaama qofkaas khayrka markuu sameeyo ajrigu ku helayo kale isaguna helaya nabigu markaa wuxuu ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa in asabaka shay'un fala taqul anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ولكن قل قدر الله nabigu wuxuu yiri haday wax kugu dhacaan eeg waad shaqeynaysaa waad socotaa eeg waad shaqeynaysaa waad dadaalaysaa wax baad baranaysaa wax fiican baad ka shaqeynaysaa laakiin dhibaato kugu timi haday dhibaato kugu timaado mesela caqabad baa kugu yimi mesela waxba hawla kugu yimi ya oranin ni hadan sidaa sameyn lahaa sidaa ma noqoteen naftaada ha mashquulinin ya لو اني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا فان لو تفتح عمل الشيطان بيجي لو ذا الشيطان عمل قالوا maxay isku dilaan waxay isku dilaan naftoodu waxay ku dhawaata ku dhacdo wuxuu ku leeyahay maxay ku dhacday shaqo waayay maxay shaqo waayay ilaahay ma yaqaanade qofka ilaahay yaqaana wuxuu oranayaa ilaahay ba ku siin doona niyadiisa ciidanaya naftiisa haday ku dhacdo nafti ku celiso maxay saa u noqon weeyay maanta isku celiso marka dambe waa daalisa wad qoonaysa marka qoostana taan qof ilaahay ka cabsan qaabada dila hadii dadka qaarkiina dawaab gaabiyaan mesela dadka muslimiinta dhaxda way nagu dhacdaa tan maxaa waxa ugu dhacay maanta dhan shaydaan ba qalbiga ku soo celinayaan shaydaanku wuxuu doonayaa inuu daalo kadibna salaada ka gaabiyo cibaadada ka gaabiyo dadaalka ku gaabto lama sameeyo sidaa noqota qof adag ee qoya nabigu wuxuu farayaa qof adag noqono hadii dhibaato ku dhacdo ka soco ma dhacdo way dhacday anda baad isku mashquulinayso waqti mid soo celin kara ka soco hore u soco waa hore u soco wixii kugu dhacayna ilaahay daraadii u sabir ka soco weey xadiiskaasi wallahi waa xadiis weyn gaalada waxa jira qaar buuq qoro oo hatta muslimkuna qaar qora way jiraan waxay ka sheekeeyaan qofka siduu u socon lahaa noloshiisa warwarkiisa uga been lahaa xadiiskaasi intuu ina baraya kaliya ba hadan ku soconayno inaga dhigi lahaa qof shaqaysanaya wax tarsanaya wax qabsanaya adduunyo aakhiraba dhibaatadana ka nabadgeli barka xadiisku muxuu yiri horta iimaanku inuu dhiirigeliyo iimaankiinu wanaagsanaa al-mu'min al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wuxuu inuu dhiirigeliyo inaan daa'iman ka shaqeyno wax yaraan faacay oo inaan عجز سمينا ولا تعجز به عجز من هذا حول قب قف وحبا قبسن كره هنا النقط قف كسته وحبا قبسن كره سماها وسلاس وهو حديث كان ما هذه دباته كو تيمادو اسكو مشغولين دباتده بعد هذا دباته الهي بقدر كسعو حولها قبسو هروسو وهو وحياه عجيب انواع وفورمولوين وفورمولوين وقواعد هذا استعماله انه سعنن إن شاء الله تعالى نكون دارين ما وقت كلاسيدا la gaaray إن شاء الله إلهي waxaan ka baryaynaa inuu tawfiiqda ina siiyo daa'iman wariyaha hoy ilaahay waa la baryaa hanuun baa la weydiistaa ilaahuna hanuuni baa la yiraahdaa ilaahu hanuuni ilaahu hagaaji ilaahu toosi baa la yiraahdaa soo garan maysid hatta hada qofkan carabi ku duceysan karahayni haduu sida u duceyso ilaahu hanuuni ilaahu hagaaji ilaahu toosi yiraahdo
إلهي رب سبحانه وتعالى وتوسوسنا وهنونيا وهنجاجنيا أنت أصلا كلمة إيدي كجوجين دونا إن شاء الله تعالى إلهي وحن كبرينا إنه خيرك إنه هنونيا وفي خير إنه وجره كل جنا نقدره طب وحي فائدة وجر تكشق سنية وحاني فائدة وجر إنك فقانية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا إلهي سبحانه وتعالى إننا كون نروح كل سبحانه وتعالى وكون فر الله نجيا شاقوا حراء القيمة بيان أمين تساعد حبدي صدحات عني الله أنا عني بولنا النبي عيسى وأنا عني ها ماذا عني ها هذا بتايد أنا كدر سبوا في صدحاتنا وكدر صدي هل كيبوك قد قاقينه صدح نبأ ويمد isagoo dul fadhiya ninkii saddexdeen dhandhaarna ma qaadi karayo waa saddex marataan uda waaweyn oo wax weeyaan de wax weey dahab ma qaadi karayo isagoo dul fadhiya u yimaado walma adiga leh ha qolgaas ay gowraceen halkii bay ku gowraceen oo saddexdii baa qaatay saddexdii iyagoo dul fadhiya ay waxa kamid ah adduunyada iyo inay tahay imtixaankaana qofka ka baxay uu yahay qofkii haysta أخلاق الناس والله الكتاب والسنة آيات كبحية واحد كنت في صير ويقولون فسهات كيدية ببعتها وشسمي يمركز بين يوم الهلاكة سبب كذب ورس وعلى ذا وحي إسرائيل نبينا عيسى عليه الصلاة والسلام يوم يسمى يهودية وأرضي يسيك منها ninka yahuudiga wuxuu watay laba xabo oo laxooxa ninkan wuxuu watay labada laxooxda nabiguna calayhi salaatu wasalaam xabad keliya watay laxoox iyar markay socdaan ayaa nabigu u salaad badnaa salaadii buu galay ninkii yahuudiga ahaa uu fikiro wuxuu isiri waa nin adwaa yahuudi wuxuu la jecel yahay ma labadaaban baa wadada lagu maraya isagu mid kaliya wataa nabigu weeyay adigu labada wataa ma labadaada wadada lagu mari intuu salaada ku jiray buu soo jiitayo markaasuu xabadii kale xabad buu ka cunay labadii laxoox isagu lahaa ayuu xabad ka cunay iyar markay socdaan ee nabigu salaadii ka baxay ay socdeen ayuu nabigu wuxuu ku yiri warba laxooxdii noo keen laba buu keenay wartii saddexaad mooy ma garanayo iyar bay socdeen markaas waxay mareen baa la yiraahdo garanuug way soo qabsadeen nabigu calayhi salaatu wasalaam uu gowracay uu qalay way cuneen intii yare soo hadhay wuxuu ku yiri kun bi idnillaahi kun noqo garanuug nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu siiyay waxa dhintay inuu nooleeyo ayaa mucjizo loo siiyay garanuugtii way iska tagto way iska socotay markaasuu wuxuu ku yiri war Allah intaan garanuugta cunay haddana inoo soo nooleeyaan kugu dhaariyay yaa tii saddexaad cunay wuxuu yiri ma garanayo way iska socdeen oo nin dhintay ayaa u tagay dadka dul fadhiyo markaasuu gacanta mariyo uu noolaaday war Allah ka inoo soo nooleeyaan kugu dhaariyay ayaa kii saddexaad cunay wuxuu yiri ma garanayo way iska socdeen webi bay tageen webi weyn bay mareen webigu gacantuu qabtay ninkii oo markaasuu ka talaabiyay xagga sare ayuu ka talaabiyay markaasuu yiri wallahi webiga intuu ina soo galiyay haddana inaga soo bixiyay inoo soo dhibiyeeyaan kugu dhaariyay ayaa tii saddexaad cunay wuxuu yiri ma garanayo way iska socdeen markay socdeen ayaa waxay u tageen saddex yani maarta dhandhaaro waaweyn oo waxa weeyaan dahaba saddexdii markay arkeen ayaa nabigu wuxuu yiri anu tan baan leeyahay ninkii yahuudiga wuxuu yiri anu tan baan leeyahay kolkaas wuxuu yiri tasaddaxaadna nabigu wuxuu ku yiri tasaddaxaadna waxa qaadanaya ninkii tii saddexaad cunay ee xabadii saddexaad cunay alla ana cunay buu leeyahay nabi ciisa ana cunay ha maada cunay ha hadaba taydana ku darsabu tii saddexaadna uu ku darsaday halkii uu kaga dhaqaaqay nabigu saddex nin baa u yimid isagoo dul fadhiya ninkii saddexdeen dhandhaarna ma qaadi karayo waa saddex marataan uda waaweyn oo wax weeyaan de wax weey dahab ma qaadi karayo isagoo dul fadhiya u yimaado walma adiga leh ha qolgaas ay gowraceen halkii bay ku gowraceen oo saddexdii baa qaatay saddexdii iyagoo dul fadhiya ayaa waxay yiraahdeen
waryaa inoo sii ilaalinaya yaa inoo sii joogaya meesha laba ayaan diranaa mid bay dirteen oo magaalo u dirteen markaasay sii fikireen labadii sii fadhiyay oo waxay yiraahdeen war ninkaas tagay waxay noo keenaya seenu dilaa waxay yiraahdeen markuu sidaa u yimaadun aan dilo isaguna uu sii fikirayo markuu sii socdo wuxuu yiri labadan seed u dishaayood u qaadataa dahabkan wuxuu yiri ma soo sumeeyay cuntadii buu soo sumeeyay mar alla markuu cuntadii sidaa u keenay mayna sugin bay way dileen halkii markay ku dileen ninkii ayaa iyaguna cuntadii bay ku jeedsadeen halkii bay ku tawafeen iyaguna saddexdoodii wada tawafsan ayaa halkii isdul fadhiistay oo halkii maartaan dul fadhiyay kii horena uu ka horeeyo la gowraco isaguna meeshii jiifo meydkiisii jiifo afartii oo sidii u wada tawafsan oo dul fadhiya baan ayuu nabigu soo maray calayhi salaatu wasalaam markaasuu waxa uu yiri unduru maada taf'al ad-dunya bi ashabiha warbal eega adduunyada asxaabteeda say ku samayso bal xagee u kala rogteen halkaas ku wada dhimanaysa waxba ka cunin qolka adduunyadani ayayna ku halaagine mobilkan iyo waxan maartaad ku jeedo iyo dhibaatada halka dambe halaag buu kugu dambeynaya aqisooyin farabadanna waa maarta laga sheegay oo mobilka maarta aan wax dhalinyarta ka soo gaaray iyo waxa weeyaan akhlaaq xumada ilaahay subhanahu wa ta'ala hayna maarta wanaajiyo akhlaaqda wanaagsan ilaahay subhanahu wa ta'ala hayna waafajiyo wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh